taariikh kasta waxay leedahay story jacayl oo lama ilaabaana qaran walbana wuxuu leeyahay halyooyin jacayl ah oo u gaar ah carabtu waxay leeyihiin storyga qays iyo leyla reer galbeedkuna romeo iyo juliet soomaalidana waa taariikhday galeen story jacaylkoogu taariikhdu galay laakiin magacyadooda idinkaan idii daayay igu qoro ka midka maalin maalimaha ka mid ah ay xilli subaxaan ahay ay gabar yar u baxday inay roodhi soo iibiso iyadoo aanay ogeyn inay maalintaasi taariikhda geli doonto inankii moofada taagnaa markay ishiisu sidaa ugu dhacday hodan ishiisiina way sii raacday hodan gacantiisiina dib boobi u soo laaban weyday ma uusan qarin jacaylkiisa da'dii ayaa caaq ku noqotay isagoo iska og inay marnaba qalbigiisa iyo maankiisaba ka baxaynin maalin walba maalinta ka sii dambaysa waa sii tamardarnaanayay fikir awgeed siduu ugu fikiriyay inantii roodhida u soo doonan jirtay bakhaarka roodhida wuxuu noqday meeshii ugu horreysay ee abaabusha soo saarta jacaylkii soomaaliyeed ee ugu horreeyey taariikhda hadallo badan ayaa faafay inuu cilmi jacaylkii hodan u xanuunsaday qoyskii hodanna aqalkay ku hayeen isaguna mar dambe ma uun arag isaguna mar dambe ma uu arag murugadiisii way sii cuslaatay qalbigiisuna waa sii daciifay ugu dambayn cilmi jacaylkii hodan ayuu u dhintay ma kula tahay berigii hadduu cilmi hodan guursan lahaa in laga heli lahaa gabayada maanta laga hayo bal adeeg hadda waa adiga iyo aragtidaada igula soo wadaag kommidka